dad badani noloshaada waxay ku dul dhigi doonaan xadayntooda. qof kastaana wuxuu ku xukumaa ama uu kugu xadeeyaa hadba heerka isaguna fahantiisa uu joogo. waxyaabaha keena dad badani inay noloshoodu u dhadhami weydo waa dadka kale hadalkooda. qof kastaaba xukunka uu ku saaro ama sida uu ku arko, hadday tahay labiskaaga, hadday tahay fikradaada, hadday tahay haddaad reer leedahay gurigaaga, caruurtaada, shaqadaada, noloshaada guud ahaaneed. marka qof uu wax kaa sheego, ha ka soo qaadin sidii waxaa qofkaas uu yiri inay xaqiiqo jirto tahay. taas waxay sabab kuugu noqon in aad noloshaada ku qanci weydo, in noloshaadu ay kuu dhadhami weydo, in shay kasta oo lagugu deeqay, hadiyad kastoo ilaahay xaggiisa kaaga timidba, in bini aadam adiga kula midihii uu kuu foolxumeeyo. qofka naf ahaantiisa dhibaatooyin hoosoo haystoodan adigu arkin baa ka keena mararka qaar inuu si qallafsan kuula hadlo. dadka qaar kuuma quuri karaan nolosha tanaad haysatee quruxda badan, kuuma quuri karaan deganaanta, kuuma quuri karaan intan yaree macaane nolosha isugu kaa aadan. adigu naf ahaantaada waxaad ka digtoonaataa in qiyaastaada saxda ah aad ka dhigto siday kugu tilmaameen ama siday kuu arkaan. isbeddel baa kugu socda. waxyaabo badanoo nolosha tan aan isugu kaa aadayn baa xaalada badan jira. waxyaabo badanoo nolosha sida aad rabtay aan kuu noqonayn baa jira. waxyaabo badanoo kartida iyo damiirka iyo dadnimada kugu jirta aad rabto isbeddel noloshaada inaad ku samaysaa jira. inta badan marka wuxuun aad ku fashilanto waxaa lagu odhan waa kaa shalayba inaadan waxba qaban karin waa lagu ogaay, maxaad isu daalinaysaa? tanaa keenta dadku siday u badan yihiin hadafkii ay lahaayeen inay uga haraan. waayo waxaa isugu darsama kow jabkii ama fashilkii arrintan ka soo gaaray naf ahaantiisa, iyo dadkii kaloo odhanaya hadda waa kaasaa maxaa waxaan isugu daalinaysaa, maxaad wakhtiga isaga luminaysaa, inaadan waxaan qaban karin baran karin way iska caddayd markii horeba. hadalkaa inta badan jabkiisii la sii raacinayo baa qofka wuxuu sabab ugu noqdaa 100% inuusan mar dambe wax isku dayin. heerka hadafyadaada nolosha aad ka gaari karto marna kuma xirna sida ay dadku kugu tilmaamaan ama dadku sida ay kugu sheegaan. taas waxay ku xiran tahay go'aamiye allaha ku abuurtay ee adduunkan ku keenay. allaha naftan yare kugu jirta kuu hadiyeeyey. adigu horay u socod yeelo oo dadaalka wad adoo niyad jaban, dadaalka wad adoo daalan, dadaalka wad adoo jeeb maran, dadaalka wad iyadoo lagu caayayo, dadaalka wad iyadoo lagu niyad jabinayo, dadaalka wad adoo baahan, dadaalka wad iyadoo qabow uu jiro, dadaalka wad iyadoo kulayl uu jiro. xaalad kasta oo noloshaada aad ku jirtaba bini aadamka hadalkooda naftaadu yaysan u jabin. soomaalidu waxay tiraahdaa geed walbaba intii gubtaa hoos taalla. qof kastaba mushkilad intii ku filan waa qabaa. qalbigiisa wuusan kuu furaynin oo kaaga warramayn ma ahane. qof maanta adduunkan jooga oo mushkiladii aysan haysan ma jirto. qof walbaba cabsi baa ku taagan. qof walbaba meel baa jirta uu ka walwalo. intay doontaba walwalkaasu hala gaaro noloshiisa. laakiin qof adduunkan jooga oo bilaa walwal ahi ma jiro. xataa haddii aad tiraahdo qof baan arkay ii yiri wax mushkilada oo adduunka ama walwal ama cabsi ay haysataa ma jirto, waxaad tiraahdaa balgeerida ka waran. wuu istaagaya wuxuu ku warwaniyo taas waa khatare, waa masiibe, bal hana xasuusin. taa laftigeeda wuu og yahay inuu dhiman doono. haddii wax kasta oo kale adduunka la yiraahdo qofkan waa u hagaagsan yihiin, haddana geeridii baa taagan oo wuu og yahay mar uun adduunkan inuu ka dhiman doono. marka haddaad aragto qof noloshu u wacan tahay, baabuur qurux badan ku socda, guri qurux badan degan, noloshu xoogaa dhalaalkeeda intii aad adigu ka jeclaysato inuu haysto, marna kama dhigno qofka inaysan dhibaato haysan. mas-uuliyadaa jira, mushkilado fara badan oo gudaha ah oo qofna uusan bannaanka kuu keenayn baa haysta. qof walbaaba adigu kula mid yahay. sida adigu mushkilada aad u qabto isna mushkilada u qabaa. dad badanoo naf ahaan isku qanacsanayn baa jira oo markay muraayadda hor istaagaan oo wajahadooda ay eegaan, bushimahooda, dhoolla caddayntooda, dhagahooda, sunniyahooda, indhahooda, dhammaan qaab dhismeedkan ilaahay uu u abuuray oo dhan baa ku qanacsanayn. marka qofkaasoo kale la yidhahdo waad fool xun tahay. sidee xaaladiisu noqon bay kula tahay? cimriga inta dhiman oo dhan wuxuu aaminsanaan inuu fool xun yahay. qof kastoo adduunkan joogaana waa qurux badan yahay, laakiin quruxdu hadba waa meesha aad adigu ka eegto qofka. waxyaabaha social media intaan ku jiray dad fara badan iga soo gaaray, marar badanna ilaa hadda wakhtigan aan joognaba tala ay iga weydiiyaan baa waxaa ka mid ah cabsida ay ka qabaan dadka kale hadalladooda ama fikradahooda. laakiin mid baan rabaa maanta inaad ku baraarugto. waxaad ogaataa wax kastoo cabsi kugu hayaaba wuxuu xadeeyaa xornimadaada qofnimo. waa kugu celinaya mar kale. wax kastoo cabsi kugu qabtaaba wuxuu xadeeyaa xornimadaada qofnimo. qofku xor baan ahay ma oran karo inta cabsi bini aadamka kale hadalladoodu ay ku hayaan.
qof daris aad la tahay baad ka baqi ama qofka gurigaad la joogtaad ka baqi ama qof aad taqaano ama kuwa aanba kuba aqooninba waxaa mararka qaar dhici karta inaad ka cabsato social media xataa sawir aad leedahay inaad dhigto waxaad ka baqi dadku talow maxay ku oran doonaan laakiin bini aadamku mid ogow hadalkooda iyo fikradooda xor bay u yihiin adigu naftaada laakiin inaad sida xornimada ay u qabaan oo kale aad ka dhigto inay xor u yihiin waxa ay kaa sheegayaan inay xaqiiqo run ah tahayna aad ka dhigto waad ku qaldan tahay bini aadamku waxay doonaan bay weligoodba oran weligoodba way soo hadlayeen laakiin adigu naftaada marka aad qiyaastaada ka soo qaaddo sida aad isu arkaysana aad ka dhigto qof kaloo bini aadam oo adiga kula mida way adkaanaysaa tallaabo inaad horey u qaaddo way adkaanaysaa inaad wax isku daydo way adkaanaysaa inaad xidig noqoto inaad soo baxdo inay dadku ku arkaan Soomaalidu hore waxay oran jireen waari meysida war ha kaa haro war wanaagsan ha kaa haro haddii kale adoo aqoon leh badan hadli karaynin qofka waxaan iraahdaa inta badan marka cabsi badani ay hayso waxaa xataa mushkilad ku qabata telefoonkan uu haysto intuu soo fariisto oo daaro inuu hal kelmadoo aqoonta uu leeyahay bini aadamka la wadaago wax kastoo kugu dhacaba kulley miya duni ka tegiyo aakhire aadi adoo nafta kugu jirto waa maya qof kastaaba geerida wuu dhadhamin sida qof kastaaba u dhiman doono baad adna u dhiman doontaa waxaad xusuusnaataa dunidan marka aad ka dhimato sannada kadib cidina kuma sii xasuusan doonto sannadaha laftigiisa waaba wanaajiyeyba hooyada aabbaha walaalaha xaaskaaga carruurtaada laga yaabe intaa kadib waa lagu iloobi doonaa taariikhdaa fog baad ku beeri doontaa sida iyaguba ay ugu beeri doonaan waxa adigu naftaada marka aad aaminsan tahay waxa adigu naftaada aad tahay kalsooni buuxda ku qab tallaabada aad rabtana horay u qaad adoon bini aadamka kale fikradahooda marna ka fiirinayn midda kale jirteen raba inaad ku baraarugto dhab ahaanna aan kaa hubaa waxay tahay cabsida ku haysaa waxay doonta ha kaa hayse ama waxay doontaba ha ahaatee waxaad sannado badan kadib ogaan doontaa in aysan xaqiiqo jirta ahayn meel fogna ha eegin noloshaada dib ugu laabo bal dib u yara milicso baalasha noloshaada waxaanad heli doontaa waxyaabo badan oo cabsi kugu hayay 90% sidii aad ka baqaysay inaysan u dhicin ugu yaraan waxba ma dhicinba qofka bini aadamka hay tashwiishka isagu uu gudaha iskaga abuurayo ayaa xaalado badan mushkilad yaroo quraanjo la'eg baa waxay la noqotaa maroodi wax kalena ma weynaynayaan mushkiladda waa sheekada negative-ka eed maskaxdaada ka dhisayso haddaad maskaxdaada ka celin karto sheekooyinka negative-ka ee maalin walba ay iyadu isquudinayso suntan ay isa siinayso maalin walba waxaan kuu hubaa waxaad noqon dadka maskaxdoodu ay u dulqaadan karta xaaladaha kala duwan ee nolosha soo mara rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam aayadda wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alharam ee suuratul baqara aakhirkeeda wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala u ku lahaa falaa takhshawhum wakhshawnii waliutima nicmatii calaykum walacallakum tahtaduun nicmada ilaahay inuu dushaada ku dhammaystiro ama nicmo rabbi inuu ku siiyo yaa haya allah subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay falaa takhshawhum bini aadamku yeenan cabsi kugu qaban innaba cabsi inay kugu qabtaan waan hubaa cabsidu way kala tahay mid waxaa jirta hadalladoodan ah keliya tan hubka la isu sito taasu waa gooni oo bini aadamkoo dhan bay taasu ku abuurantahay laakiin meesha bini aadam ay isku dhaafeen waa tan maskaxdooda ah iyagu naf ahaantooda tashwiishkan gudaha ka haysta stresskan gudaha kaga furan waxyaabaha dheeraadka ee iyagu ay abuurayaan haddii aad rabto inaad ka bogsato cabsida gudaha aad ka qabtay bini aadamka hadalladooda iyo fiirintooda iyo waxay oranayaan waa in allah subxaanahu wa tacaala si dhaba qalbigaaga aad ugu dhiibto anigu waxaan iraahdaa dadka bini aadamka inta badan hadalladooda iyo ka baqbaqa xaqiiqa ahaan iyadoo cidba aysan kaaga warramin haddaad naftaada u fiirsato salaadahaagaa dayacan dib isugu yara laabo salaada subax baad ka hurudaa tii makhribku waa ku dhaafi waxaad doontid ba adigu cudurdaar ka dhigo shaqada keliya ee laguu abuuray ee laguu diray ee lagaa doonaya waa inaad rabbigaa caabuddo haddii cibaadadaasu ay kaa xumaato rabbi qofka ka baqi waaya bini aadamku ka cabsadaa fikradaha bini aadamka iyo maangaab kasta mid iska qayilaya hadal iska soo tuuraya markaasaad caawa dhan sariirta isrogrogyodan seexan karaynin haddaba haddaad rabto qalbigaagu in uu noqdo mid saafi ah maskaxdaaduna mid adag oo xamili karta bini aadamka fikradooda kala shaandhayn karta ilan filter baa ilaahay ku siiyey qofka kula hadlaya qaabka uu kula hadlaya horta waase taa laftigeeda u baahan inaad u fiirsato dadka qaar waxaa jira waxyaabaha ay kuu soo jeedinayaan ama dhaleecayntoodu ay dhismo kuu tahay oo noloshaada horumarkeeda ay ka talinayso iyo dadka qaar hadalka sababta ay kuu leeyihiinba ay tahay inaad nolosha ka dhacdo waa inaad labadaa kala saarto
allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu ina leeyahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja ma rabtaa adduunyadan waddo inuu ilaahay kuu furo rabbigaa si dhaba uga cabso rabbigaa si dhaba isugu dhiib bini aadamka hadalkoodu macno ma lahan hadalkan laftigiisa qof baa maalin dhowta wuxuu ugu yidhi walla saa doontid ba isu adkayo bir isaga dhigay hadalka bini aadamku saamayn waa kugu yeeshaa waayo nebi maxamed baa sala allahu calayhi wasalam ilaahay uu yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun laabtaadu inay la ciriiriyoomayso waxa ay ku leeyihiin waanu ognahay waan ka warqabaa iyadoo loo laabqaboojinayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasaan waxaan idhi ujeeddada hadalka aan u socday waxay ahayd hadalka bini aadamku yuusan murugo kugu qaban falaa yaxzunka qawluhum suuratu yaasiin aayaddaasaan ka duulayo ku socday baan idhi kama wadin inuusan saamayn kugu yeelan karin wuu kugu yeelan karaa bini aadam baa tahay laakiin inuu kula dego oo aad wax qaban weydo oo far nuuxin weydo oo noloshaada oo dhanba aad meel koonara intaad isku xirtoo taagnaato cabsi aad ka qabto bini aadamku waxay ku odhan doonaan marna wax kuu cuntama ma ahan